xaflad siyaasara loo soo agaasimay isla markaana lagu taageerayay ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa lagu qabtay xaafadda Coston ee magaalada Port Elizabeth waddanka South Africa. xafladani ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda jaaliyadda, ganacsato, waxgarad, haween, dhalinyaro iyadoo holka xafladda ay ka dhaceysay inay aad u soo buux dhaafiyeen shacabka Soomaalida ee ku nool deegaanada kala duwan ee gobolkani, kuwa oo si weyn ugu soo libistay dhar lagu asteeyay astaanta calankeena Soomaaliya. marti sharaftii halkaa ka hadlay ayaa gabi ahaanba ku dheeraaday hambalyada ay u dirayaan ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Cabdi Faarax Shirdoon Saacid, waxaana ay ugu baryeen in uu noqdo kii ay dalkooda dib ugu laaban lahaayeen maadaama ay dhibaatooyin badan kala kulmeen wadamada ay u soo haajireen. waxaan halkan hambalyo uga dirayaa ra'iisul wasaaraha, madaxweynaha, gudoomiyaha baarlamaanka. waxaan ku qanacsanahay xalfadda ka dhacaysa maanta u dhiganaa xalfadan waxa waaye oo u soo qaban qaabinay wadankeena. anaka ma joogno wadankeena, wadan qurbaan ku noolnahay. gaar ahaan waxaan aad ugu mahadcelinayaa gabdhaha shaqada badan ka soo qabtay, dhalinyarada ayadana shaqo badan ka soo qabtay xalfadan si ay u dhacdo. xalfadaas oo lagu taageerayo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya hadda la doortay. علي waxaan inta ka salaamaya madaxweynaha dalkanaga iyo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka. aad baan ugu faraxsanahay wadankanaga dawladda cusub ee ka dhalatay. aadaan ugu hambalyeynaya. intii ay socotay xafladda ayaa waxaa halka lagu soo bandhigay heeso, buraanburo, gabayo ka turjumaya wadaniyadda, iyadoo gabdhaha Soomaalida ay halka ka dhigeen ruwaayad aad u soo jiidatay ka soo qaybgalayaashii xafladda. waxaan ruwaayadii ka turjumaysay isbedelada cusub ee ka curtay geeyigeena Soomaaliya iyo dhibaatooyinka dumarka Soomaalida ay kala kulmaan wadamada ay u soo haajireen. calanka Soomaaliyeed oo cirshiga ka nuur cirkaado egtahay rabbiyo laga cabsado. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, telefishinka qaranka Soomaaliya, magaalada Port Elizabeth, waddanka South Africa.